السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال meel walba adduunka ka joogtaan si kastoo aad noo daawanaysaan waxaan leenahay soo dhawaada mar kale video xiiso badan. maanta horta aad baan ugu faraxsanahay inaan hortiina soo istaago. fadlan haday tahay markii kuugu horeysay YouTube channelkeena soo booqato subscribe saaro si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo. maanta waxaan rabaa arrin isoo jiidatay oo aad ugu qoslay marna aan isdahay in arrintan suurtagal ma tahay. video aan daawanayay ee soo duubeen team Lilife oo bilaabay inuu iscadeeyo diyaano isku dhaqo sanadkan waa la isdhaqaa. horta Lilife horta waxaan leeyahay marka hore hambalyo in cadeystaa tahay in aad xadi doontid heesaha dadow. kulleeto Lilife fanaan ayaan qana ayuu yiri heeso soo qaaday ninkii markuu heesii soo qaaday in kulleeto markii hore oo YouTube ka bis ku ekaa wuxuu dhihi jiray oo ku qanacsanahay madoobaantayda waa ku qanacsanahay inaan isxadeyn balse Lilife oo isbedelay. hadaba Lilife ma sii cadaa doona ma dhihi doona cadaantiisa oo amba diyaan dhaqooga ma isku sii wadi doona ma soo jooji doona arrin xasaasi ah xog xasaasi ah in kaga haya Lilife oo iscadeyntii bilaabay inuu isdhaqo. hadaba daawadu ma qaban doontaa mase way qaban way doontaa waa tahay horta saaxiibkayga hambalyan kula maadaama aad fanka lugta la gashay haddana aad cadeysatay inaad dadka qaar oo heesaha ku ciyaara aad ka xadi doonto. dadka heesaha ku ciyaara wuxuu yiri heesahooda waan qaadan doonaa oo luuqan geli doonaa. horta taas waan kuugu hambalyeenayaa. ta kale Lilife diyaano ayuu isku bilaabay arrin xasaasi waay oo in laga hadlo u baahan. Lilife wuxuu dhahay madoobaanta ay dhibtay waa inaan iscadeeyaa. hadaba Lilife maxaa ku sabab maxaa koos gareeyay inuu iscadeeyo. Lilife waa wiil dhalinyaro ah YouTuber ah oo bulshada in badan ka soo hor muuqday. kalarkiisa ayuu yiri waan bedelayaa waxaan sameynayaa in iscadeeyo. horka martaan arkay horta arrinka waxaas dhahay Lilife maxaa ku qasbay inuu iscadeeyo. xogaa aan raadiyo xogaa way ii suurta gashay inaan xogaa helo. horta Lilife wuxuu yiri waan iscadeynayaa kalarkii hore lagu yiqiinay waan iska bedelayaa oo nin cad ayaan iska dhigayaa. dadka hadda joogo fanaaniinta ah ee amba YouTuberada isdhaqaqa inaan iska saramariyaan raba oo cadaan aan noqdo. waad arkaysaa video soo gelinaya oo dhahay waan isku cadeynayaa. waa wada daawateen waadna arki doontaan waa sii daawan doontaan. fadlan haddaad YouTube-kiisa aad saarneen YouTube-kiisa ka soo daawaada arki doontide. Lilife wuxuu dhahay waan isdhaqayaa oo nin cadan isku soo saarayaa dadka luuqa ay geliyeen ayaan iska soo saari doonaa amba aan iska celi doonaa. ninka ma qarin wuu cadeystay dadaa isqarqariyaan dadaa luuq la galaan oo marka ay soo cadeeyaan social media soo risaay balse asigu oo arrintii faraha kula jiro YouTube-ka soo galay oo isdhaaya hadda ayaan isku bilaabaya markii uu soo gadanayna waan tusay. ninka rag kaas ah lahaa oo iska qarin oo hortaada la soo istaaga arrinta cad oo doonaya. horta tafanaanimada hambalyan ku leenahay inta heesaha ka xadi kartina ka xad inta heesaha ku ciyaartana heesaha ku ciyaareen soo toosi taasoo kugu hambalyeynayna. horta iscadeyn markii la dhaho waa soo babdhigtay si public ahaan aad bulshada u tustay. Leo horta daawadu ma ku qaban doontaa oo ma ku soo saari doontaa mase way kugu ciyaari doontaa waa arrin ka hadal mudan. maxaa ku qasbay inuu iscadeeyo. dadka daawanaya inta badan commentiyada qaar waxay yiraahdeen Leo waa madowdahay waa inaad iscadeysaa. dadka qaarna kuma raacsano Leo maanta waa dhahda waa iscadeynaa balse ama laga yaabaa inaad biri ka laabatid markii ay daawada ku qaban weyso. ma laga yaabaa daawada la isku cadeeyo dadka qaar inay qaban weyso. horta dadka qaar ma aaminsan yihiin dadka qaar waxaa arkaysaa daawada ma ku qabanayso dhahaya daawada horta dadka ma qabataa dadka qaar ma qabataa. Leo inay qabanayso iyo inay qabanayn waan arki doonaa maadaama uu isku bilaabay 4 isbuuc ayaan sugi doonaa asigoo cadaan ah markaan aragno. dadka qaar inay ku daydaan oo maleeyna oo iscadeeyaan dadka madmadow ee YouTube-ka jooga waxaan u maleynayaa inay iscadeeyaan oo iska dhigaan dhalacad. YouTuber qaar aragtay oo markoodii hore profile-ka ma gadaal markii loo raaco xogaa madooba marka ay xogaa ay dhaqaale heleen iscadeeyay. Lilife dhaqaalaha miyaa ku qasba inuu iscadeeyo mase waa arrin asiga ku dhalatay. barnaamijkaasi gooniyeen asiga u soo fadhiisan doonaa waa casuumi doonaa oo kaga wareysan doonaa balse ta keentay inuu iscadeeyo ayaa bilaaway markii uu fanka lugta la galay.
markuu fanka lugta la galay fanaan walba kulleeto waxbuu ku soo galaa fanaanki ugu horeeyay kulleeto aan xasuusto oo asagoo madow aan arkay oo asagoo cad arkay haddana waa Dayaxdal Nuurshe kulleeto Lilaf Dayaxdal Nuurshe ma ku daysan doonaa oo markuu fanka soo galo fanka markuu soo galo horta kulleeto wuu sheegay heestii arooska ka bacdi markuu soo qaaday horta hees kugu hambaleynayaa si qurux badan u qaaday cod qurux badan ku qaaday cod fiican waa leedahay kulleeto heesa adiga aad leedahay markaa soo bandhigtina waan filayaa inay bulsho badan ay kugu raacsanaan doonaan ani ahaantayda heestan waa arkay waan daawaday aad baan ku faraxsanahay aad si qurux badanna waa u soo qaaday arooskina ku kala kicisay taasoo kugu hambaleynayaa fanka marka la galayo waxa laga yaabaa in irdo badan ay ka xiran yihiin marka aad lugta la gashidna ay irdo badan ay ku furmi doonaan Lilaf ma irid u furanta inuu isdhaqo oo iscadeeyo mase waa arin kale oo asiga ku dhalatay kulleeto barnaamijkaas gooniyaan uga hadli doonaa balse hadda taagan Lilaf markuu iscadeynayo uu cadeystay si aan ka gambasho lahayn ayuu u yiri waan iscadeynayaa kulleeto lama dhuuman balse markii la iscadeynayo ascadeynta kulleeto dumarka Soomaaliyeed loogu talagalay inay iswada cadeeyaan oo dhalay iska dhigaan gabartii shala madoobeed xaleemadii madoobeed absharadii madoobeed ayaa waxa arkaysa Britol iyo cadaan marka waa arin dumarka loogu talagalay liyo arinta kulleeto aan ahaantayda ama isa saxsaneen aan ku dhihi lahay ku masaxsanid way ii suurta galeed inaan soo fadhiisin lahay bas barnaamij gooni ayaan ka sameey doonaa oo ku saabsan wixii ku dhaliyay balse ta hadda taagan waa arin la yaab leh horta ani aad aan ula yaab markaan arkay kulleeto xasdahay luqmada waa isku cadeey karay luqa xataa wuxuu isku soo cadeey waayay haddana muxuu xasdaa liyo dadku waa madoobaday ay ku dhihi jireen hadda luq isku soo cadeyso yaani waa qarsatay iyo blaay kula galayaan ma sababtay inuu isku cadeeyo dadka ku xiran daraadood mase fanaannimada keentay ani ahaantayda markaan xooga raadiyay waxa ila noqotay inay keentay fanaannimada marka oo heesaha bilaabay ku dhalatay in uu bilaabo inuu iscadeeyo amba diyaano oo isku dhaqo kulleeto waa arin la yaab leh oo xasaasi ah kulleeto qof walba oo YouTube channelkiisa ku xiran YouTube channelka Wadajir Media Show ku xiran waan filayaa inay arinka ay ku noqon doonto la yaab Lilaf oo iscadeeyay haddii arkaan kulleeto arin la yaab la ay ku noqon doontaa Lilaf diyaanadii ay isku bilaab dad qaar ayaa jiro kareemo dabiici isticmaalo oo kareemada isku soo dhiso balse asigu wuxuu dhahay waxaan ka bilaabayaa diyaanada waa isku bilaabaya inaan iscadeeyo oo bidcad noqdo kulleeto dad madmadow oo YouTube ka dhex joogo way ku daysan doonaan waan filayaa inay ku wada daysan doonaan oo ayakana ay bilaabi doonaan inay diyaano isku bilaabaan kulleeto waa dooqaaga adiga haddii aad la gambalaheed haddii aad bulshada hortooda aad ku soo bandhigi lahayd oo dhihi lahayd waan iscadeynayaa aniga qof kama gambanaya anigoo siikiyara ah kulleeto isma cadeynay ilaahay intuu ii dhaliyahay ugu deeyo balse anoo siikiyara Lilaf waan kugu cambaareynaya inaad iscadeyso kalarkaagu waa kii loo baahnay waa kii Soomaalinimada lagu yaqaanay markii la wada dhaho dhalinyarada bulshada dhammaan intooda dhan way iscadeyso kalarkeena anaga kalar aan leenahay kalarkan kugu talagalay ilaahay oo noo suugiyay haddii aan kalarkeeni aan bedelno waxay la mid tahay ay la micno tahay anako dhaqankeena bedelno kalarkeenu waa inaan ku faanaa ma ahan dumarkeena Soomaaliyeed hadda markii boqolkiiba boqol hadda madow aragtid ma badno waa hal iyo labo oo ku dambeeyso dhaqankii dhowraya oo xoogaa horta hal isku dadaalo dumarka markii loo eego xoogaa haruudka iska marsadaan xoogaa wax yar oo nuurinay balse ma ahan inaad cadaan wada iska dhigtid maanta adi dumarkii Soomaalida iyo kuwii gaalada la istaajiyo kulleeto cadaanta waxaan filayaa kuwii gaalada in luq la geliyay kuwii loogu talagalay oo loo soo saaray inay iscadeeyaan oo cadeentooda waa cadaantooda loo bandhigay oo aan bal madoobeen haddii la soo istaajiyo waxay la tahay inay luuq wada galeen oo aan la arkaynba oo ay gabdhihii Soomaaliyeed ay ka cad yihiin liyo arinta aan ahaanteeda oo siikayraa waan kugu cambaareynaya ma ahan inaad kalarkaaga bedesho waan ka xumahay kun iyo koo jeerna waa ka xumahay inaad is dhaqdo oo aad jirkaaga bedesho ha bedelin jirkaaga fadlan haday markii kugu horeysa isku bilowdo tahay iska joojiyada dhanba iska dhaaf inaad iscadeyso cadaanta wax ay ku soo kordhinayso malaha una dul qaado inta yar oo ku dhahayso liyo waa madowdahay
madow aad tahay dhuxul aad tahay war dhuxulaa sheegoosaah mugdi aan iska ahaano sidaada ku qanacsanow qof walba kalarkiisa ku qanacsanaado si live asiga ayaan mar dhow kugu soo fariisin doonaa fiidiyoosha xiga fiidiyoogan fadlan haddaad tahay markii kugu horeysay share garee subscribe saaro youtube-keena haddaad ku cusub tahay gambalaalka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya aad baan ni jecelnahay mar walbana waxaan ku fikirnaa inaan barnaamijyo xiiso badan idiin soo gudbin intaan fiidiyoogan mid ka xiga aan kulmi doono waa sidaas iyo anigoo sii keeno in la nabadgelyo